waxaa jira beredhoweyd waxaa la aaday dayax toddobaadkan iyada oo la sheegay in lagu soo wareegay dayaxa markii ugu horeysay sax safar noocaasa la galo waxaana ka soo noqday hadal dadkii waxay ka falcelinayaan oo soo celcelinayaan inaanay ku qanacsanayn in arrintani la sameeyey sax arrintan maxaa ka warhaysaa su-aal aada u wanaagsan weeye oo aad baa horta looga doodaa arrinkani sidaad ogeyd 50 sannadood waa kii la tegey muxuu ahaa dayax waa kii la tegey ee lagu dul degay oo Neil Armstrong iyo raggii cirbixiyeenadii ay dayaxoo weliba toos way dad badan ilaa iminka dad badani shaki bay ka qabaan oo waxay aaminsan yihiin in aanan dayaxa la tegin oo shirkadani hawada sare u qaabilsan dowladda federaalka ee la yidhaahdo NASA ay sida film maanta oo kale green screen kan inagu baan studiyeesh ku isticmaalo la sameeyey sababo badan ayaa ay arikaasi ku keeneen kow waxay yidhaahdeen tiknolojiyadda waqtigaasi jirtay ma suuro gelinayso in weliba isagoo dayaxa jooga in weliba telefoonadii ay la soo hadlayeen oo madaxweynihii Mareykanka ee waqtigaasi uu isagoo ofiska jooga xafiiska Oval Office-ka uu wacay kombiyuutarada berigaa la isticmaalayo waxay leeyihiin awoodoodaaba yareedoo telefoonkan iminka iPhone 16 Pro Max ayaa 10 jeer ka awood weynaa kombiyuutarada waqtigaasi jiray ma garatay marka waxay leeyihiin lama tegin waxyaabaha kale ee lagu arkay dayaxa waxa weeye in ay yiraahdeen calankii ay ka dul taageen inuu babanayay meeshaan hawo ma jirto in uu harko maadaama ay cadceedu kaliya jirto oo il kaliya uu iftiinkii ka imanayo one source of light waxay harko inuu dhinac qura ka hayo harku inuu dhinacyo badan uu ka qabanayay in markii ay dayaxa dushiisa ku dul istaageen raadku uu ku dhegay oo raad caana sawir caan oo raadkii kabtu uu ku haray meeshii taasna waxay yidhaahdeen raadka noocaas wuxuu samaysmi karaa markay carro yaro qoyan oo ay jirto halkaana biyana dayaxa oogadiisa iyo dushiisana inta loogay biyo ma jirin marka dad badan baa diida oo waxay yidhaahdaa aragtida shirqoolka ayaa waxaan la yidhaahdo conspiracy theory dad badan oo xitaa aqoon-yahanaa ayaa ka shakiyey ta kalena waxaa sababaha kalena waxaa noqday in 50 sannadood ay qaadatay in dib loogu noqdo oo la yidhi maxaa loogu noqon waayey sababaha loogu noqon waayey waxa ay dadku ku sheegeen NASA kamay jawaabin marna waxa la yidhi waxa ay shirkadda NASA tiri in tiknolojiyadii beriga aan ku tegnay ay naga luntay oo inaan ku noqon karaynin dadka qaarkood waxay yidhaahdeen koonka bilaadanuna kuma noolo alien baa joogta waxay yidhaahdeen dayaxa waxa fadhiya alien markii ay tegeen waxaa loo sheegay bini'aadanka inayna mar dambe ku soo noqonin dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin dayaxu in uuna ahayn wax dabiiciya natural object inuuna ahayn uu yahay wax artificial ah oo la sameeyey una ilaahay sameyn sidaasay aaminsan yihiin oo la keenay waxa kale oo sii dhalisay in ay dadku ka shakiyaan weliba Mareykanku in dayaxa la tegay cirbixiyeenkii markaa ugu caansanaa Neil Armstrong waxaa lagu yidhi kitaabka Bible-ka ah ku dhaaro nin wariye ah ku dhaaro inaad tagtay waxaad tiraahdaa waxaan ilaahay ugu dhaaranayaa kitaabkii Bible-kii buu gacanta ayuu u keenay nin wariye ah oo qolooyinkan taageera aragtida shirqoolka ah wuxuu ku yidhi haddii aad dayaxa tagtay kitaabkan ku dhaaro waxaad tiraahdaa waxaan ilaahay ugu dhaaranayaa inaan tegay oo ay run ahayd ninkii u carooday uu kala tuuray ninkii wariyey marka dadka iyagu
cilmu nafsiga iyo jirka dhaqdhaqaaqiisa akhriya waxay ku leeyihiin okay hadduu ninkani dayaxa tegey أنا هذا ده يحتاجي بقول كتاب ما كنا عارنا يا أبو يا وأكون فانا يا لكن ما ينوح ناقة يا دار سوين تاسون معها وحوي مريكا ككلب بركي باشي كسن بركا وحي هيد سوين تاسون معها بقول كتاب إنه كنا عارته بارنا وجه كسي ولا قرت أيا لا قرته بركا وحيا الله سهودن أيا هيد وحا كلاي كدودي ترين إنا مارس أو ينقفك in la tago waayahay marka waxa shirkiguna keen inta aad maaris oo 6 bilood loo soconayo tagayso teknolojiyadii imka hore u martay ma dayaxan hortaan tagno marka cadaadiskii lagu hayay shirkadana oo lacaga badan oo bilaayin dollar bay miisaaniyada dawladda ka cuntaa baa keentay in maanta marka waxay yiraahdeen dayaxa dhinac un bayna soo eegaynaga dhinac qurun baan aragnaa laakiin dhinaciisa kale ma aragno oo waxay yiraahdeen ofisjidka iyo graafitiga ayaa uu ku xidhayo markuu dhulku wareegay dayaxuna saambulo dhinac qura un bayna aragnaa marka dhinacaas kale waxa loo yaqaan dhinaca madow dark side of the moon ama far side of the moon ay yiraahdaan marka waxa dhacday in la yiraahdo waxa dhinaca kale jooga in la yiraahdo maalmo dhaweyd dayax-gacmeedyada cidi wadin ayaa China ay direen waxa kaloo dawladda India waxay dirtay dayax-gacmeed ayna dad ku jirin oo Vikram la yiraahdo oo ku degay dayaxa dhinaciisa kale qaybta madow marka waxa dhacday in wadamo kale ay wixii danaynayaan marka shirkadana waa lacaga badan ayaa ku baxda marka dawladda Hindiya qiimaha ay dayax-gacmeedka u dirtay wuxuu noqday wax yar oo aan malaayiin dollar aan gaaraynin laakiin muxuu ahaa NASA waxa kaga baxda balaayiin dollar waxa kaloo imika soo galay in maalqabeennada waaweyn sida muxuu ahaa Elon Musk oo kale oo isaguna shirkado ay sameysteen SpaceX la yiraahdo wuxuu rabaa isagu in bilaadanku ay tagi karaan Mars lagu noolaado dhulkan waxay sida filmaanta badanka lagu metelo in dhulkan ay dadku ay aad ugu badanayaan oo pollution uu noqon doono hawadu xumaan doonto resource-ka iyo in loo guuro oo aynan waxay ahamsayin qaarkood dad aqoon-yahanada inaynaan dhulka laftigiisa aynaan dhalan ku ahayn bilaadanku aynaan native ku ahayno meel kale aynu ka nimidnay sababaha ay ku cadaynayaan waxa ay leeyihiin haddii aynu dhulkani ku abuuranayn marka hore inagu aan native ku ahayn bilaadankan ay dhalad ku yihiin waxay ahaan lahayd inaan meel walba aynu ku noolaan karno dhulkani meelo gaara unbuu bilaadanku uu kaga noolaan karaya oo yaa waxay yidhahdaan waa hostile environment waa yacnihii waa dhulku waa degaamo kula dagaalamay oo meelaha badankoogu waa kulayl badan meelaha badankoogu waa qabow badan badba 70% waa biyaha bilaadanku kuma noolaan karo markaa meelo yaroo gaar unbuu bilaadankii uu ku nool yahay markaa sidaa daraaddeed waxay leeyihiin Mars baan markii hore ayaan ka nimidnay marka waxaa la rabaa bay leeyihiin in haddii dhulkani uu muxuu ahaa uu xumaado in sidii bilaadanka tafiirtiisa loo badbaadiyo in bilaadanku ku noolaan karo meelo kale waxa kaloo iyaduna meesha option kala taala in la yiraahdo in hawada intoo laga yarbaxo dhul meel kaleba la tegin degaamo sidii satellite-ka oo kale satellite-kadan degaamo waaweyn oo dhulku laakiin la wareega la sameeyo marka meesha waxa keenay kuwa ku tartamaya ninkan Amazon le Jeff Bezos isaguna wuxuu leeyahay Blue Origin shirkad la yiraahdo waa kan imka dhulka ka yara baxaane ay hawada sareynta yartagaan yar ay soo noqdaan marka shirkigii hadaba aynu soo noqonay markii maalmahan
cadaadis badan markay shirkadii NASA ay dareentay ayaa waxay tiri 2030 intaan la gaarin ayaan dad u diraynaa in maya kusoo wareegidu way hore laakiin qorshe waxa weeye in dad intay ku degaan laga dhiso saldhigyo oo lagu noolaan karo macdantana lagala bixi karo marka waxay sameeyeen qorshe ka horeeyo horta bal in lagu soo wareego marka dayax gacmeed waxaa la diray la yidhaahdo Artemis labo dayax waxaa la saaray dhowr cirbixiyeen oo afara oo gabadhi ku jirto ninkadan iyo nin kale oo Canadian oo aqoonyahana iyo laba nin oo Mareykan ah iyo nin madow 4.5 ayaa lagu qaybsaday meel waliba iyo wax waliba imika 4.5 buu leeyahay marka nin madow dadkii de laga tirada badnaayay madowga ahaa qof baa laga keenay dumarkiina kursigii dumarkana mid baa laga keenay cadaankii iyo wadanka Canadana waa laga soo qaaday waayahay waxaa dhacday sababta ay u diideen markii dayax gacmeedku u tagay sawiro toos ah ay soo gudbinayeen sawiradii tooskii waxa shikiga keenay dayaxu mar kasta oo u sii dhawaanayso waxay ahayd inuu soo weynaado wada kugu soo dhawaado waxay noqotay iyagoo wax yar u jira inuu weli intan markaan dhulka markaan ka eegay inuu 15aadka yahay oo uu weyn yahay ayaaba ka weynba oo iyagii u dhawaa kolba ku sii dhawaanayay waxa uu jiraa muxuu ahaa wax markuu dhulkan joognaba 15aadka uu ka yar yahay shikigii bay keentay oo waxa weeye waa wax iska caadi ah marka building kan dheer downtown aad ku soo socoto oo inuu kugu soo dhawaado markaad ka fogaanaysan wixii waa inuu yaraado waa wax common sense waxaas oo la isla yaqaano iyadoo live tahay oo maalintii horeysay maalintii labaad maalintii saddexaad maalintii afraad oo ay ku socdaan dayaxi wuxuu noqday inuu intii taagay waxa kaloo meesha dhacday marka ay dayaxa ku soo wareegaan xagga dambe ka maraan sawiradii video may soo samaynin zoom oo kumay soo dhaweyn ila meesha u dhow yihiin marka waxaa la leeyahay tiknoolajiyadda intaa leegee taala adduunyada in sawiro kaliya in markii lagu sii socday una dayaxi soo dhawaanin in videoyo badan oo zoom loo kamarada casriga ayna jirin wixii oo dhan baa shiki geliyay marka waxa dhacday in ay dadkii ay aamini waayeen muxuu ahaa in dayaxi la tagay oo markii hore waxay islahaayeen dadku way aaminayaan laakiin sawirada qaarkood waxay la mid noqdeen sawir xilligii 50 sanadood ka hor oo kale la qaaday sidii uu dhulku yahay dayaxa dhinaciisa kale sawir qaadeen oo dayaxa oogadiisu ay muuqato dhulkuna uu muuqdo dhulkii maxay ka dhigeen wax yar taasaa shikiga keenta dhulku dayaxa wuxuu ka weeyahay 4 jeer marka waxay marka dayaxa joogto dhulka sawirto waa inuu soo weynaado oo kamarada qariyade ay ahayd laakiin waxay noqotay inuu noqdo marka muxuu ahaa dhulka marka dayaxii joogtay dhulka sawirto inuu noqdo wax dayaxa ka yar taana waxay keentay in shaki badan oo hada qofkii aanan cilmigiisa iskaba aanan garanaynin wax uu caadi uga shakiyay noqotay awaale dhinaca kale hadan maadana su'aashan dadku maadaama is khilaafsan yihiin iyo weli shaki jiro dhinaca quraanka iyo dhinaca sayniska haddana waxaa jira quraanku inuu ka hadlayo oo sheegayo in cirku adag yahay oo albaabo laga galo iyo albaabo furan iyo albaabada kale leeyahay sayniskuna uu yahay meel iska furan oo hawo iska furan dhinacaas bal iyada bal looga waran su'aal aad u wanaagsan weey sayniska iyo quraanku meelo badan iska waafaqaan laakiin waxay aad iskugu khilaafsan yihiin waxa la yiraahdo cirka
ama samada ama heaven ama samaa waxaad doontaba dheh ama sky waxaad doontid dheh aad bay iskugu khilaafsan yihiin xagga qur-aanka iyo saynisku qur-aanku waxa uu sheegayaa in uu samadu ay tahay shay adag oo dhismo oo kale oo weliba adag oo sida dhulka oo kale adag oo weliba inoo dhow oo inagu dahaaran ma garatay wabanaynaa fawqakum 7 shidaadan ayaa ilaahay waxa aan dushiina ka dhisnay 7 dhisme oo adag wajacalna samaa saqfan maxfuuda samada waxaan ka dhignay saqaf ceiling saqaf waa wax waa gurigan telefoonka oo kale halkan oo la ilaaliyo idinku dahaaran wayumsiku samaa an taqaca cala alardi ilaahay samada ayuu dhulka ka hayaa si ayna ugu dhicin ilaa wax adag وإن يروا آياتي كالمحيط وإن يروا كسفا من السماء ثاقدا هدي أي أركان محوها قبل سمدا كميدا وكسور دعية واتا آياتي كالمحيط لا تفتح عليهم أبواب السماء لغا مفر محوها الباب دا محوها إن السمدا دي الباب وحا الباب لي وشيء أدق وشيء أدق ويان oo waxay leedahay wadooyin meelo la maro asbaab samaawaati ayaa jira asbaab waxa la yiraahdaa meelahan wadooyinkan hawada la maro xagga markaad eegto kutubtan kale maya kutubtan kale muxuu ahaa bible-ka oo kale isagu waxa uu sheegayaa in uu inagu dahaaran yahay wax sidii khudbad oo kale dhom la yiraahdo firmament bay yiraahdaan ka marka iyagu bible-ku kitaabka bible-ku waxa uu kaga duwan yahay ma sheegayo inuu wax adag yahay laakiin wuxuu sheegayaa inuu yahay wax transparent sidii muraayada oo kale laakiin adag oo aan laga gudbi kareynin sababaha ay uga soo horjeedaan dadka badan ee Mareykanka ee cadaankii ee aaminsan diinta Kiristaanku waxa weeyaan sabab diineed oo waxay leeyihiin lagama gudbi karo doomkani film baa jira show waa musalsala under dome la dhaho oo waxa weeyaan muraayadaasi ay weliba magaalooyin ay kala qaybinayso marka ta kale la yaab kale iyagoo aanan samada la arag marka quraankii sidaas uu horta u sheegay laakiin waxa quraankii sababta uu sheegay wuxuu waa shay adag laakiin de ma arkayno waxay ahayd maadaama quraanku uu yiri saqf de wax inoo dhow ma arkayno ayad kala jirta meeydaan arkaynin samadii inaan muxuu ahaa abuurnay biduuni amadin tarawnaha muxuu ahaa tiir la'aan de awalam yarow ayuu quraanku ilaahay isticmaalay awalam yarow laba uun bay noqotaa miyaanad arkaynin iyo miyaanad ogeyn labadii midna de ma ogin mana arkayno waayahay quraanku halkaas uu maray lama xaqiijin karo de ma arkayno sayniskuna wuxuu yiri waxaan inagu hareeraysani waa atmosphere baa la yiraahdaa waa hawooyin kala duwan ayaa inagu hareeraysan waana laga bixi karaa waana la soo galay laakiin marka la soo galayo dayax-gacmeedkan maanta waa isticmaalay marka la soo galayo hawadaaba aad isku cadaadiso wuxuu noqdaa kulayl ayuu noqdaa wax waliba uu gubanaya laakiin dayax-gacmeedkani dadku ay la socdeen hawada markuu soo galayo re-entry baa la yiraahdaa re-entry-gaasi 7 minute bay qaadataa waa ta ugu halista badan laakiin marka xagga dambe waxa lagaga rikibaa wax la yiraahdo heat shield oo ka dahaaraya muxuu ahaa kulaylkaas marka waxay ku leeyihiin hawada iscadaadiska xoog uu ku soo galay ee dhulka difaacda ilaalisa marmar heat shieldkaasi dayax-gacmeedka ku rakiban ee kulaylka ka ilaalinaya heerkulku wuxuu gaaraa 5,000 oo degree cadceedda intay tahay halfkeed kulaylka cadceedda intay tahay markaad cadceedda oogadeeda aad joogto
marka hawadaasunbaa ina ilaalinaysa laakiin waa wax laga bixi karo laguna soo noqon karo ayuu saynisku leeyahay waa hawadaas spaceku waa meel maran hawo ma jirto waxba ma jiraan muxuu ahaa waxaana isku keenhaya cadceedaasi iyo muxuu ahaa dhulalka muxuu ahaa meerayaashan kale Marsna waa dhul ina lamida Venus la yiraahdana waxa weeye waa dhul ina lamida oo isagu dhinaca cadceeda inooga dhow meerayaasha kalena waa hawo sida Saturn iyo baalkii ha marka iyagu waxa sayniskaasi sidaas u leeyahay iyagu way cadeeyeen waa kuwan u dira dayax-gacmeedyo aanan cidi wadin waxay yiraahdeen Mars jooga waxaana la tegayaa waxaana cadeynaysaa muxuu ninkan la yiraahdo Elon Musk hanti badan buu ku bixinayaa in Mars la tago marka hadii uu qofku ka shakisan yahay waxay nagu dahaaran yihiin de lacag badan iyo kuma bixin karo marka kitaabka quraanka ah iyo saynisku way isku khilaafeen laakiin taariikh la yaab kale oo de quraanku wuxuu sheegay sidaan sheegayba in uu samadu ay dhismo tahay bilaatiir tahay uu inaga inagu yiri lahay meedaan arkayn wali de lama arkayo mana arkayno mana ogin ta kale la yaab kale cabsataaro waxa jira dadka oo dhan iyagoon ku heshiin ayay isla wada waafaqsan yihiin inay samadu tahay wax adag Soomaalidii hore markuu xitaa qofkiis waa anaga ma cirkaad nagu soo duminaysaa ayuu ka oranaya Soomaalidu waayahay maxay ka dhigan tahay deyle meel mar lagu soo dumin maayo waa meel adag meel xiran oo adag oo dhaqanada adduunyada oo dhan waxay aaminsan yihiin inuu cirku yahay wax adag oo wax adag uu yahay heesaha dhaqamadoo dhan waxa ku jira inuu dhulku inuu yahay cirku wax adag Ingiriisku adiga arkay sky is the limit baa lagu leeyahay waa waxa ku muxuu ahaa xad kuba waa halka Skyfall ma garatay filankii the James Bond Skyfall waa daadu cirku soo dhaco waxba meeshii ma jiraan Arabtii markii uu quraanku soo degay waa kuwii yiri hadii ilaahigayow suuradii muxuu ahaa suuratul Maa'ida ama Anfaal bay ahayd waa kuwii yiri hadii uu yahay quraankanad nabi maxamed ku soo dejisay xaq dhinacaaga hadii uu yahay famdir علينا حجارة من السماء dhagaxaan cirkana kaga soo daaday de waxay tilmaanaysaa inuu yahay wax adag oo ka dhisma adag marka sidaas weeyaan khilaafku halkaas ku jira uma santa cawaale warbixintaana siisay waa loo baahnaa because in la fahmo sida ay isu jiraan marka wax kastoo yimaada barnaamij noocan oo kale in looga hadlo aadiyaad si dadka loogu sheego xataa xiriirada ka dhaxeeya sababaha keenay waxyaabaha isku khilaafsan yihiin aadiyaad waa wax mar walba barnaamijyada nooca kana aan u baahannahay inaan soo diyaarino aad baan u mahadsantahay mar labaad aadiyaad adaa mudan